maayirka degmada Yube Boqor Ibrahim Maxamed Xasan iyo maayirka degmada Arbogays Xuseen Cabdi Cabdalle oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Cerigabo ayaa sheegay in deegaanada ay maamulaan aan la gaarsiin biyihii abaaraha ee xukuumaddu dhawaan ku wareejisay maamulka dawladda hoose. dhinaca kale waxay beeniyeen odayaal sheegay in xukuumaddu deegaanadaasi gaarsiisay biyihii abaarta. saxaafadan waxaan u qabanay inaanu ka jawaabno saxaafadahan laga hadlayo anigoo ah maayirka degmada Yube Boqor Ibrahim Maxamed Xasan isimkan beeshana ah waxa igu kalifay inaan hadlo sida wax u socdaan waxa weeye markaan ka jawaabo degmada Yube wax biyo ah horta gaaray iyo wax nagala tashaday iyo wax qoonda ah midna ma hayno. biyahana waxay soo mareen madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddida abaaraha iyo wasiiradii loo xil saaray goboladii ku wareejeen barasaabku si fiican buu wareejay degmadu ku wareejay annagu mas'uuliyiintii degmada ah oo roolka aan ku leenahay aan waxna nala ka weydiin qoondana naloo sheegin ayaa wax dhacday waxnu maqalay niman baa qandaraas lagu siiyay dabadeedna nimankaasi biyo macaan la qaadaa bay ahayd biyaha macaana lama qaadin sidoo kale lama geyn sida hadda anu degmada aan mas'uulka ka ahay wax biyo la geeyay ma jirto waxaan rabnaa in xaqiiqo raadin iyo wariyayaal ay tagaan dadka hantida loogu dhibay dadkana oo mas'uuliyiinta soo wada martay meeshii u dambeysay kiiska bariiska lagu furayay hadii lagu cuno waa dhibaato anigu aan cidna eedaynayn cid gaarana taabanayn biyaha ma hayno sidoo kale koonfurta dadkii waa qaylinayaan mas'uuliyiin beereedo ka jawaabaya waxaan ka codsanaynaa dawladda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka guddida abaaraha dadkii lacagta jeebkooda laga soo saaray la soo ururiyo ugu deeqay dadkii loogu talagalay ma gaadhin soo guurtadii ceelashay ka cabaan waa joogan wax loo geeyana ma jirto waxaan u leenahay 400 oo booyadood baa la sheegay 130 waxa la yiri habshiil baa bixiyay 270 waa biyihii madaxweyne ku xigeenka iyo laga soo urushay qaranka marka la qaybiyo 270 booyadood lacagtii gobolka la keenay $280 bay ku fadhidaa meelaha ugu fogna waxa la sheegaya in 180 loogu qiimeeyay waxaan u leenahay arintaas war degdega dawladdu ha soo dirto xildhibaanna ka hadlay imanka xildhibaanka ka hadlay xagga koonfurta laga soo doortay waxa weeye hadaladiisii waxaad moodaysaa in la eedaynayo kuwa kala ka daba hadlay hadii dadka laga soo doortay adeer mahdi shirma Yube tagay maarmalu soo maray ma dhulkii buu tagay koodhade ma Arbogays buu tagay wala gaarsiiyay muxuu leeyahay hadaan uba warhayn ha wareysteen nimankii biyaha la siiyay anana waxa leenahay goobtaasi waxa ma tagin waana la wareegaanistay ummadii lagu qaalisay waxa dambeeyo soo baxay dadkii dadweynihii iyo annaga la iska kaayo horkeeno oo la yiraaho biyaanu bixinay oo u dhiibnay maamuladiinii anigu degmada Arbogays aan maayirkeediya iska daa degmada Arbogays waa bashashay horeba waxba gaar jirin oo dadku ku soo guuray saxaafadana hore u geeyay oo in badan laga madaxweynaha yar soo arkeen tafuqiga xitaa iska laba geyn anoo afkii maayir kale ku hadlaya wax gaaray haba yaraatee ma jiraan xildhibaankii aan ka soo dooranay degmooyinkana waa ka hadlayay wuu joogay wax loo ogeysiiyay wax loo dhiibay annaga isaga toona ma jirto calaana xukuumadda mas'uuliyiintii baanu nahay qaranka mas'uuliyiinta qaranka nahay u joogtay dalka iyadoo nala ku soo guuro dhibaatooyin badan haysteen oo xagga amnigu nagu adkaa abaartu nagu adkaa cid kale lagu soo guuranay dul saareen dadka soo guuray waliba khaasatan degmadayda ugu sii cuslaatay haba yaraato gacan suganay oo anagu dadka u gurbanay in la iska kaayo horkooda bulshada la yiraahdo waxba la siinay oo la yiraahdo meel walba laga soo celiyo wixii xagay mareen waa xaraan Jaabir Saciid Ali Jaabir Bulshaawi Ariel TV Cerigabo.